way khadan bal waxa aad noo sheegtaa sida aad wax u qabto iyo naafanimadaadu siday tahay walaal hayo walaal maxamed aniga naafanimadeedu waxa weeyaan aan ku dhashay ilaa markii aan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ku dhashay dhowr saacadood kadib baa la ogaaday in qayb jirkayga ka mid ah naafo tahay qaybtaas oo ahayd labada lugood labadooda lugood waxba ma qaban awood way leeyihiin buuxda laakiin waxa jirta miskaha oo ah halka laga socdo ayaa ay ku jirta xanuun kaasoo aan ii saamaxayn inaan socdo hooyaday markaan 6 bilood jiro waxa lagu taliyay in ay Djibouti ama Ethiopia midun igeyso inay wax ka qabadan yeelan karayo laakiin xaaladii wadanku markaa ku sugnaa iyo family-ga iyaga xaalad ahaan oo awood u lahayn inay wadamada loo magacaabay geeyaan ayaan ii suurtagelin ilaa iminkan wali wax caafimaad oo helay ma jirto saadarteed baan inaan birihii wadanka wixii yaala qalabe aan ku socon karayo oo ku socdo ay suurtagal iigu noqoto oo yahay khadan kulay imika waxaad ku jirtaa jaamacadii oo qof muddo kara oo kaalin gala oo mustaqbal leh oo higsi leh oo intaas oo dhan waxbarashada soo wadayba tahay hadii aynu dib u yar meelcsanaa dib u yarano dhalaannimadaadii amba caruurnimadaadii waqtiyadii dugsiga hoose dhexe aad soo bilaabaysay baad ku jirtay caqabado noocyo baa kula kulmay soo gudubtay runtii caqabado waan la soo kulmay naafanimada aniga ku dhashay muddo ilaa 8 sana bay ku qaadatay inaan kaco hadana markii dambe kacay waxa igu noqotay inaan gidaarkiga ku kaco hadana markii dambe inaan iska u yara socdo naafanimada layga dareemayo hadana aan biro ku socdo biraha markii aan ku socdo waxbarashadii laygu daray waxa caqabad ugu horeysay hortii ay noqotay inaan markaan 2 jeer talaabo qaado xaglaha soo jileec aan ka dareemay aan dhaco oo marka waxbarashadii laygu daran xoogaa dhiganay aan inta yar iskuulka ii dhow aan u sii kala soconayay aan dhaco maalintii intee nabartii cagayga ku yaalana guriga ku soo noqdo qof yar wad dareemi karaysaa inaan qof yar waxbarasho waxba ka garanay hadduu xanuun la soo kulmano iska diidayo laakiin hooyadii macaan Aamin Cabducays ilaahay hadaayay cimrigana ha u dheereeyay iyadoo oo jeclaysiinaysa waxbarasho ay markasta igu oran jirtay hooyo naafanimadu waxba maaha waxbarashada dad si fiican u wado runtii qofna kuma oranayo waa naafo waxbarashadaada wad iyada markasta igu dhiirigelin jirtay waxbarashada wado runtii waxaan oran karayaa dugsiga hoose dhexe intaas dhibaato waxay igala soo kulantay dhacaninka faraha badan leh oo nabaradii markaa igu dhacay wali qaar imika shirkayga ku siyaala hadana waxbarashadii hooyaday jeclaysiisay iyo aniga markii dambe weynaaday jacayl waxbarashadii u qabay anigoo xariifadna ku ahaa maadooyinkan dhiganayo taa lafteedan ku ilaaway caqabadahan iga hor imanayay